kulanti wacan oo wanaagsan khayarta aynu jecel lahay oo kusoo dhawaada channelkeena waxaynu barnaamijka markaasi aan maanta si weyn ugu lafaguri doonaa arrimo dhowr ah oo ku saabsan waxyaabo badan oo markaasi bulshada ay ka aaminsan tahay waraabaha aynu fiirin doonaa ama markaasiba barnaamijka aynu kusoo qaadan doonaa su-aasha aan isweydiinayno waxay tahay waraabuhu ma labeeba mise ma aha waraabaha ama dhurwaaga dad badan oo Soomaali ah iyo ummadaha kaleba waxay markaasi aaminsan yihiin in uu labeeb yahay yacni in waraabo kasta oo markaasi labadii xubnood ee dhiddiga iyo labka kala soocayay ay markaasi ku wada yaalaan oo waraabo kasta markaasi isagu isrimin karo isagoo aan u baahan waraabo kale taasina waxay keentay in la arkay waraabe xiniiniye leh oo markaasi saartay waraabo kale oo xiniiniye leh iyo waliba in la arkay waraabe xiniiniye leh oo markaasi ilmo dhalaya haddaba su-aashaan isweydiinayno waxay tahay maxaa ka jira arrintaasi ugu horeyn waraabaha qofka aan aqoon u lahayn way ku adag tahay inuu kala garto ama uu markaasi kala saaro kan dhiddiga iyo kan labka ah waraabaha kiisa dhiddiga ah waxay Soomaalidu u taqaanaa candha dheer magacaasina bilaash uguma bixin ee sabab ayaa keentay sababtuna waxa weeye waraabaha dhiddiga ah ayaa leh xubin markaasi qoorlamood ah ama pseudo penis loo yaqaano oo eeg xubinta taranka ee labka xubintaasi oo ka laalaada candha dheerta culimada saynisyahanadu ay markaasi ku fasireen in ay tahay sangal ama clitoris markaasi dheeraaday waraabuhu sida xayawaanada kale ayuu markaasi kala leeyahay lab iyo dhiddig markay isbarbar joogaanna waxaa markaasi dheer oo xoog badan dhiddiga candha dheerta xubinteeda qoorlamoodka ah ama pseudo penis ayay ka dhashaa inta badan isla xubintaasi ayaana looga galmoodaa candha dheertu marka ugu horeysa oo markaasi ay dhalaysa dhib weyn ayay mudataa oo xubintaasi way dilaacdaa marka ugu horeysa oo ilmo kasoo dhacayaan intaasi waxay kasii dambeeyana way u fududaataa dhalmada dadka qaar baa isweydiiya talow candha dheertu oo ah waraabaha dhiddiga mar haddii ay leedahay xubin qoorlamood ah oo kacaysa waa pseudo penis iyadu ma saarataa kan labka si la eg sida ay iyadu markaasi u saarato waa maye marnaba lama arag mana dhicin midaasi hadal iyo dhammaan waraabuhu labeeb ma aha lab iyo dhiddig ayuu markaasi kala leeyahay tan dhiddiga oo keliya ayaa markaasi la rimiyaa ilmahana dhasha waxaan rajeynayaa markaasi in waxyaabo badan aad ka bogateen ay ku saabsan waraabaha iyadoo dadka intooda badan ay aaminsan yihiin in waraabaha uusan lahayn dhiddig iyo weliba lab waxaan filayaa in waxyaabo badan markaasi aad ka bogateen oo waraabaha ama dhurwaagu dad badan oo Soomaaliya iyo ummadaha kaleba ay ka aaminsan yihiin inuu labeeb yahay yacni waraabo kasta oo markaasi labadii xubnood ee dhiddiga iyo labka kala soocayay ay ku wada yaalaan oo waraabo kasta oo isagu isrimin kara oo uusan u baahanin waraabo kale tan iyo kulankeena dambe fadlan ha hilmaamin like share iyo subscribe ismaqal dambe oo xiiso badan